السلام عليكم ورحمة الله. waxaan ahay Xuseego. waa mid dadka Soomaaliyeed ku cusub in la arko dad aan Soomaali ahayn misna ku heesaya afka Soomaaliga. luqadda Soomaaliga waa qaar kamid ah kuwa ugu adag caalamka aan ku noolahay sida ay sheegeen dad aan u dhalan dalka. ma ahan mid fudud in aad ku hadasho afka Soomaaliga, balse waxa ka adag in aad ku heesto. haddaba muuqaalkan waxaan idinku soo gudbin doonaa dhowr qof oo cadaan ah oo isla markaana ku heesaya afka Soomaaliga. hadda ma aan hadalay waa hees. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso talow sidee ugu heesayaan iyagoona u dhalan dalka. taa beddelkeeda waxaa jira dad aan Soomaali ahayn oo ku heesaya luqadaha Swahiliga, Ingiriiska iyo kuwo badan oo kale. dadkaasna uma aysan dhalan dalalkaasi. haddaba sidee ugu heesayaan iyaguna? aan u soo laabano muuqaalkeena. fiiro gaara shakhsiyaadka aan idiin soo gudbin doono intaa kuma koobna. waxaa jira qaar kale oo naga daahsoon, laakiin muhiimaddu waxay tahay inaan wax ka ogaano ama aan wax ka barano warbixinada noocan ah. Paul Moreno oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Mareykanka, ugu dambeynna la baxay magaca Geedi Raage, waa nin Soomaalida muddo dheer la noolaa xilligii 80-meeyada, asigoona ka shaqayn jiray waagaas isbitaalka Buule Barde, asiga iyo xaaskiisa Shamso Geedi Raage. oo marka Ahmed waxa uu dhahay lahaa Maxamadi aabo kan yar iga eliyo kan weyn iga soo day laakiin heesaa ma ahan, balse waxa uu ka mid yahay dadka awoodda u leh inay ku hadlaan kuna heesaan afka Soomaaliga. Soomaalideyni haddii ay siinahatay Soomaalideyni haddii ay siinahatay waa subax wanaagsane calankana salaama nin lagu sahdo haseexan hilbaasita haseexan nin lagu sahdo haseexan hilbaasita haseexan haseexan soo jeedo si weyn u feejigmo. Sofia waa gabadh aad u cod macaan, waxay si live ah u qaadaysaa hees ay horay u qaaday fanaanada Fartuun Birimo. Sofia dalka ay ka soo jeedo ma garanayo, balse waa xaqiiqo inay ku habboon tahay inay noqoto fanaanad Soomaaliyeed. waa gabadh ka soo jeeda dalka Sweden, waxay si live ah u qaadaysaa mid kamid ah heesaha Soomaalida iyadoona taageero badan ka helaysa shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya. xaqiiqdii waa iga qoslisay tan. marka aad daawato waxaad bis leedahay Soomaaliga iyo Jaynis loo bedelay. hagaag next. Marian Jeso waa fanaanad Soomaali Itoobiyaan ah, inta badan waxay ku heestaa luqadda Itoobiyaanka, laakiin markaani waxay ku heesaysaa hees Soomaaliyeed ay horay u qaaday fanaanad caan ah Diryaan.
Tanya oo lagu naanayso Canab Caday waxaan filaa inaad badankiina aad taqaanaan waa gabadh afka Soomaaliga ku heesi jirtay muddo laga joogo dhowr sanadood balse hadda ma aqaan halkii ay ku dambeysay waa gabdho Swedish ah kuna heesaya afka Soomaaliga waliba si live ah inta waxa uu si dheer waxa ay xiran yihiin dharka ay ku heesaan ama waa ay xirtaan hablaha Soomaaliyeed dadka daawanaya dhamaanna waa Swedish hagaag intaas ayaa ku soo koobi doona muuqaalkeena waa ay jiraan inta iyo in ka badan balse muhiim ah inaan halkan ku soo wada qaadano nabadgelyo